kulankan oo ahaa mid ay soo xaadireen warfidiyeenada ka howlgala magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa ujeedkiisu ahaa mid ay kaga tashanayeen aayahooda mustaqbalka dambe waxaana markii ugu horeysay ku dhawaaqeen urur ay ku midaysan yihiin saxafiyiinta reer Sool ugu horeyn waxay isla qaateen saxafiyiinta ku dhaqan magaalada Laascaanood magaca ururkan oo uu qaadan lahaa ururkani waxayna u bixiyeen Soma oo loo soo gaabshay Sool Media Association ku dhawaaqista magacaasi kadib waxa la guda galay doorashada gudoomiyaha xogayaha iyo madaxa dhaqaalaha ee ururkaasi yeelan lahaa oo kale loo doortay inuu ururkaasi gudoomiye ka noqdo Faysal Jaamac Aadan oo helay codadkii ugu tirada badnaa ee halkaasi laga bixiyay waxaana sidoo kale xogayo loo doortay Cabdiraxmaan Cali Ducaale waxaana sidoo kale halkaasi oo loo doortay madaxa dhaqaalaha ee ururkan yeelanayo مولود إسماعيل هرديجيد oo kamid ah saxafiyiinta ka howlgala magaalada Laascaanood maanta waxa soo gabagabowday runtii fursad aad u wanaagsan oo gudida boardka saxafiyiinta gobolka Sool ay isugu yimaadeen sida ay dooran lahaayeen gudoomiye iyo xogayaha ururka sidoo kale waxa si degdeg loo magacaabay maadaama waqti fara badan oo lumay si loo qabto gudoomiyaha waxa loo doortay Faysal Jaamac Aadan waxaana la tartamayay Samiir Saciid Bilo waxaana tanaasulay Cabdiraxmaan Cali Ducaale iyo Maxamed Cismaan Cabdullaah Xaashi sidoo kale doorashada waxa la qabtay xogayaha ururka saxafiyiinta gobolka Sool Soma waxaana u tartamayay saddex musharax oo kala Mawlid Haraadigeed محمد أحمد خاتم سيدو كله عبدالرحمن علي الدعالة وحنا عضو هالديريا ودورشة سيا هيد مدجع عن تاجا كسر بحي عبدالرحمن علي الدعالة وسيدا بقول كيوا سجاشن دورشة سيو كوجولستي سيدو كله وح حكيها أورك صحفيين تسوما ودورتي إنه نخذ خصنت شجع أورك مولد إسماعيل هردي أد بعد ما هتنتهي دماتين بعض الصحافة قبل كسول أنت مقن أنت شوك تبع waxaan ogahay rag badan baa maqan oo goobtan aan iman guddigii ilaa iyo maalmaha hawsha soo waday ayuun ba haatan hawshan gaadhay nin dooran bay yiraahdeen doorta miyuu ah mahmaxaynkaas jirtay awalba odayga saxaafadda gobolka waan ahaa sidii maxamed ba sheegay wax soo kordhay oo hadda aan ilaahdo way ugu soo kordheen ma jirto inaanu Samiir tartano baa soo kordhay oo tii ugu qosolka badnayd ah waana alxamdulillah ma sha Allah dadkuna maalin walba waxa weeyaan way soo soconayaan umaduna waxay leedahay han in iyo hore loo socdo runtii waxa jirta dhibaatooyin badan oo dhinaca miidiyaha bahda saxaafadda gobolka Sool haysatay oo muddo badan soo taagnayd oo dhinaca ha kaga timaado maamulka ama ha kaga timaado dhinaca mujtamacba dhibaatooyinkaas oo dhan waxa sabab u ahaa urur la'aanta waayo mar hadaanay dadku lahayn urur iyo cid difaacda toona waa ari la raaci ari cid lagu sii daayay oo dawaco iyo waraabe iyo dhuluk dhalaq iyo jiifa hadba kii halaaba meel ka qabsanaya iyaguna aan si ciidnayn inkastoo ay dadaal badan sameeyaan oo aan gurmadka ku kala hari jirin waxa uu baala maanta saxafiyiinta gobolka Sool ay ku midoobeen urur marka ay leeyihiin kaasoo danahooda dabcan ka shaqeynaya dhammaan saxafiyiinta ama guddigan saxaafadda maanta qabatay doorashadan waxaan leeyahay aad bay ugu mahadsan yihiin waana wax u yeelay waan ugu mahad celinayaa dhammaan xogayaha laga doortay iyo sidoo kale gudoomiyaha Faysal Jaamac Aadan loo doortay waxaan leeyahay gacmahooda jir ay ku gooyaan fiinta gobolka Sool Soma oo maanta lagu dhawaaqayo uu yeelan doono waxa ka dhacday runtii doorasho xor iyo xalaal aad baan ugu hambalyeynaya gudoomiyaha ururka saxafiyiinta gobolka Sool Soma ururka saxafiyiinta ay doorteen warbaahinta ka howlgasha gobolka Sool waxaan rajaynaynaa inuu wax badan ka qaban doono tacaddi ku soo noqon jiray saxaafadda qaybaheeda kala duwan cabashooyin ay bulshada qaybaheeda kala duwan nafsiga saxaafadda ay ka taban jireen wax ka qaban doono in saxaafaddu ay yeelatay hoggaan lagu soo hagaago sidoo kalena wax ka qaban doono jadiyada lagu talagalay warbaahinta ka howlgasha gobolka Sool aad ayaan ugu faraxsanahay maanta doorashadan ka dhacday halkan lagu doortay gudoomiyaha ururka saxafiyiinta ee gobolka Sool Faysal Jaamac Aadan midnimada bismillaahir rahmaanir rahiim magacay waa Maxamed Axmed Jaamac kan tirsan warbaahinta gobolka Sool أنا كقول يا أفكار وربحت قبل كصالي أفكار تيفيجا وبري وحنا سؤال ويننا حلك عصب أما أورك عصب لقول واقعي وما أنت سيرس من لقول واقعي مقدار الأسعار إن هذه أضمن فرح سنة وأنا سؤال ويننا إن أدانو وربحت قبل كصالي إنه حنبلن قادنا إنه قيب وين كقادنا هرمك قبل كصال
nabadaynta colaadda ka taagan koonfurta gobolka Sool muddooyinkan in badan soo noqotay inaanu anigoo Fadxi Faarax Deeriye kana tirsan saxaafadda gobolka waxaan aad u soo dhaweynaynaa ururka cusub ee ay yeelatay saxaafadda gobolku waa ururkan waa loo baahnaa wuxuu wax badan ka qabanaya tacadiyada loogula kici jiray saxaafadda waxaan u maleynayaa gruubkii kale ee warbaahinta ee gobolka Sool ee guud ahaan ee noo xil saartayna aad bay u soo dhaweynayaan uguna mahadnaqayaan waxaan u kalifeynaa maanta war sameysana waxa weeye markaan aragnay waqtigan loo baahan yahay in ay midowdo saxaafadda gobolka Sool anagoo rajaynayna in gobolada kale deegaanada Sool Sanaag iyo Caynay Hareeraha ay nala qaadan doonaan arintaasi ayaan ururkan u sameysnay waxaan ugu baaqaynaa cid kasta oo daneynaysa arrimaha saxaafadda in saxaafadda gobolka Sool ay midowday in saxaafadda gobolka Sool hal maamul yeelatay waxaan aad ugu faraxsanahay doorashada Faysal Jaamac Aadan oo ah oday u qalma in uu noqdo gudoomiyaha suxufiyiinta gobolka Sool. Farax Maxamuud Dubad, Somali News TV, magaalada Laascaanood.